daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalka imtixaanaha ahaa ee dhiirigelinta. Warren Buffett waxa uu hadalkiisa ku leeyahay intaad aqoon kororsan karto ayay la eg tahay intaad wax xanato. Haa, tani waa sax waana hubaal. Taasi waxaan ku ogaan karnaa haddii aad u fiirsato dadka guulaystayaasha ah sida Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates iyo inta la midka ah ee hogaamiya maqaamyada dunida ugu waaweyn ayaa tusaale inoo ah. Way guulaysteen sababtoo ah waxa ay si saxan u isticmaaleen waqtigooda. Waxay noloshooda u hibeeyeen inay wax bartaan oo ay aqoon kororsadaan. Waxay maalin kasta ku dadaalaan inay wax cusub bartaan. Warren Buffett waa mid ka mid ah dadka ugu qanisan dunida, ayaa ah shakhsi akhriste caan ah oo akhriya ugu yaraan 5 saacadood maalin walba. Bill Gates waxa uu usbuucii akhriya ugu yaraan 1 buug. Mark Cuban ayaa isagana akhriya 3 saacadood maalin kasta. Dadka guulaystayaasha mar waliba waxa ay noloshooda geliyaan buug akhriska, marna ma hakiyaan aqoon kororsiga. Tusaale ahaan waxaad ku fikirtaa inaad haysto maalinkii qarash gaaraya $86,400 si aad u isticmaasho. Laakiin lacagtaas markuu maalinka soo dhammaado waxba gacanta kuguma harayaan. Lacagtaas dibna kuguma soo noqonayso. miyaadan isku dayi lahayn inaad lacagtaas oo idil maalintaas wada isticmaasho? miyaadan ku dadaali lahayn inaad si maskaxaysan u isticmaasho? miyaadan ku dadaali lahayn inaad si wanaagsan oo maskaxaysan u isticmaasho lacagtaasi? qaybta murugada leh ee intaas aan kor ku soo xusay ayaa ah inaan kaliya maalin walba aan haysano 86,400 oo iskimo. taasi oo dadka badankooda ay u haystay inay dhammaanadooda ku jirto. dadka badankooda waxay ku qanacsan yihiin waqtigaas inay si ula kac ah u luumiyaan iyagoo marnaba isla xisaabtamin. ogow marnaba waqtigan dib uma soo celin karno. waa inaan si maskax ku dheehan u isticmaalnaa. waa inaan dad wax soo saara noqonaa. waa inaan samaynaa wax ay nafsadeena ka hesho samayntooda. si aan mustaqbalka u isticmaalnaa samaynta waxyaabo badan oo doonayno inaan samayno halkii aan waqtiga ku lumin lahayn waxa mustaqbalkeena faa'iido u lahayn. waqtigaaga u isticmaal si maskaxaysan. isku day inaad akhriso buugaag noloshaada faa'iido u leh. dadaalkaaga sii laablaab. iskuna day inaad barato waxyaabo cusub maalin kasta. dadka badankoodu waxay ka quustaan riyooyinkooda inay ka dhameeyaan sababtoo ah waxay ku qaadataa waddo aad u adag. halka ardayda qaarkood ay ka quustay inay daba joogaan hamigooda iyo riyooyinkooda sababtoo ah imtixaanada oo ay ku dhaceen awgeeda. ardayda qaarkoodna marnaba iskuma dayaan inay istijaabiyaan sababtoo ah goor hore ayay maskaxdooda ka dhaadhiciyeen inay ku dhaceen imtixaanka. ardaydaas waxay mar hore joojiyeen inay ayaga naftooda dabeecadooda ka turjumaan. halkaas ayay ku dhimanaysaa riyadooda inay ka dhameeyaan. haddii aad riyo leedahay si aad ugu dhamayso waxaad ku dadaashaa inaad samayso wax walba oo ay kugu qaadato. marnaba ha joojin inaad ku dadaasho ka dhamaynta riyadaada ilaa aad ka tijaabiso waddo walba ay kugu qaadato. nolosha sideedaba waxay ka samaysan tahay tijaabo iyo imtixaan. marar qaar waad ku dhacaysaa tijaabadaas laakiin waxaa ka sii liita markaad joojiso inaad ku celceliso tijaabadaas oo mar walba aad ku dhacdo. riyadaada waxay rabta ha ahaato marna ha ka quusan inaad ku dadaasho ka dhamaynta ilaa aad ku guulaysato. si aad ugu dhamayso rajadaada naftaada ku riix oo u jeehay qofka aad damacsantahay inaad noqoto. haddii aad doonayso inaad ka mira dhaliso natiijooyin cusub waa inaad naftaada bartaa inaad samayso waxyaabo badan aan weliga hore u samaynin. Bill Gates oo ah nin maalqabeen ah ayaa hadda kor laga weydiiyey awood noocee ah ayaad jeclaan lahayd inaad hesho mar waliba. waxa uuna ku jawaabay waxaan jeclaan lahaa in la i siiyo awood aan ku akhrin karo buugaag tiro badan si xawli ah. guusha kuma koobna dhaqaale, caannimo ama guryo waaweyn oo aad yeelato.
guushu waxay ka turjumaysaa inaad noqoto qofka ugu wanaagsan noociisa version kasta aad ka turjumayso. way dhici kartaa inaad guuldaraysato, laakiin mar kasta ku dadaal inaad kor u kacdo ilaa aad ka guulaysato. mar waliba dib u soo kax oo noqo qof sii xoogaysta ilaa aad guul ka gaarto. haddii aad ka rajabto iskana sii dayso inaad daba joogto riyooyinkaada, marnaba ogaanaysa sida aad u tahay qof meel sare ka soo muuqan kara. marnaba ha shakigelin nafsadaada, sababtoo ah shakigelinta nafsadaada waxay ku horseedi kartaa inaad ka quusato guulahaaga. maalin walba ku dadaal inaad nafsadaada ka shaqaysiiso. qofka aan la hadlayo waa adiga. haa, waa adiga hadda daawanaya. mana jiro qof ka muhiimsan nafsadaada. Here we go.